السلام عليكم barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa Allah naxariistii janna ka waraabiye madaxii atomikada dalka Masar Samira Muuse waxay macallin xagga atomikada shucaaca nuclear-ka waxay u dhalatay dalka Masar waxayna ahayd nuclear scientist oo u dhashay dalka Masar waxay shahaadada diirimaadka shucaaca qulqulka uranium-ka ay ka soo qaadatay jaamacadda Manchester ee ku taala dalka Ingiriiska waxayna ka qayb ahayd culimadii Carbeed ee hay'adda sirdoonka Israa'iil ay u dishay aqoontii u lahaayeen atomikada iyo shucaaca nuclear-ka darteed 1948 markii lagu dhawaaqay dawlad ay leedahay Israa'iil Samira Muuse waxay dibadda u aaday hay'adda tamarta atomikada ee dalka Masar iyada oo safar dhanka ugu baxday dalka Mareykanka si u soo korsato aqoonta xagga atomikada iyo shucaaca nuclear-ka Samira Muuse xilli ay hawlaheeda baaritaanka xagga atomikada shucaaca nuclear-ka ka wada jaamacad ku taala wadanka Mareykanka ee gobolka Minnesota ayaa laga codsaday inaysan aadin dibadda laakiin taa beddelkeeda ay ka shaqeyso gudaha wadanka Mareykanka laakiin Samira Muuse qorshaha dhammaan way ku gacan sayday maalmo yar kadib intii ay noo soo dhoofin dalkeeda hooyo ee Masar waxa lagu casuumay shirka dhacay California balse intii ayna gaadhin shirki ka dhacay California waxa gaadhigeedii yaraa uu ka dhacay joogdan 40 cagood halka ayay ku nafbaxday halka meydkeedina lagu daray meel biyo mareen ah inta ka bacdi baaritaan la sameeyay ayaa lagu halagalay hay'adda Israa'iil ee Mossad inay ka dambeysay dilka Samira Muuse waase kiis ilaa maanta loo sawirto sidii shil dhacdo oo kale iyada oo la iska indhatirayo xaqiiqooyinka jira iyo dhagarqabayaasha Israa'iilna dilka Samira Muuse waxay ka gaashaamaneysay in aqoonteeda tiknoolajiyadeed ay ula duusho dalkeeda Masar taas oo ay waragtay Israa'iil inay tahay istiraatiijiyad xagga tiknoolajiyada iyo atomikada bamka nuclear-ka Samira Muuse waxay noolayd intii u dhaxaysay 1917 ilaa 1952 goortaas oo ahayd goortii la khaarijiyay warbixintan waxaa diyaariyay saaxiibkay Ismaaciil Faarax Maxamed Xaaji